السلام الله عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada janalkayga Mustafa Alcadaala. Maanta halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sheekooyinka ugu qosolka badan ama ugu la yaabka badan ee laga diiwaangeliyey maalmaha sabta ama maalmaha ciidda ee maalmahan saddexda ah oo kale. Yacni sida dareemaysaan maalmaha ciidda gaar ahaan saddexdan maalin oo ciid weyneed ah inta badan dadku xoolo ayay qalaan, sab ayay dhigtaan, qaar baa xus dhigaa, qaar baa udxiyo qasha. Marka xaafad walba dabcan inta badan xaafadaha waxbaa laga qalaa. Marka waxaa jira dad ka faa'iideysta oo sabgaadyaal ah oo yaryar iyo waaweyn isugu jiraan, gaar ahaan dhalinyaro u badan. Marka waxaa jira sheekooyin sooyaal ah oo inta badan isheeg lama ilaabaan noqday oo sheekooyinka ugu qosolka badan ah. Marka sheekooyinkaasaan rabaa inaan bal hal iyo labo aan inkaga taabto inta aan ka xasuusto. Marka bal kusoo dhawaada. Aniga laftirkeygu waa sheekooyin aad iiga qosliyey oo inta aanan gaarinba يعني maaragtahay aan sii qosli doono ama niidab aan ka qoslay. Marka hadda kor waxaa dhacday nin loogu magacaabo Maxamed Marti oo sheekada baadiyey ka dhacday. Marka xilli waxay ahayd ciid ah gaar ahaan saddexdan maalmood oo kale. Marka ninkan wuu ku xisaabtamayay aadna wuxuu u yaqiin dadka sabta dhiga oo aan ciidda saareynin oo ciid walba xoolaha qalaan aad u yaqiinay. Marka wuu ku sii xisaabtamayay wuxuu marka sii diiwaangeliyey ama uu ku sii xisaabtamay ilaa iyo 4 reer oo uu isdhahayay waa 4 reer ee ugu fiican sab dhigayaan ama xoolo qalayaan. Marka ninkan wuxuu ku xisaabtamayay inuu mid ka mid ah 4taasba mid kasta oo ka mid ah inuu ka qayb galo oo aysan dhaafin 4toodaas oo mid walba ugu yaraan uu wax ka cuno ama uu ka qaato ama uu ka cuno oo si oo yacni uga qayb qaato. Marka nin sabta aad u jecel ahaa wuxuu sameeyay marka sabti koobaad uu tagay. Tii koobaad markuu tagay wuxuu tagay ayadoon hilibkii iyo waxyaabahaas dhan oon la diyaarin oon raashinkii la karin oo hawshu hadda la bilow tahay. Marka wuu fikiray wuxuu sirnay tii reer hebel way ku dhaafaysaa haddii aad tan sugto. Marka caqli uu sameeyey ninkan nin caan u ahaa wuxuu sameeyey cimaamadiisii iyo isheeg ul maya tan dambe waaye cimaamadii iyo shaatigii ayuu geed surtay. geed la isugu yimaado dadku wax lagu sii baadiyaa inta badan qofkii yaqaana inta badan dadka geeda lagu sooraa, geed weyn lagu sooraa. geedkii marka wuxuu surtay cimaamada iyo shaatiga. Yacni waxay ka turjumaysaa cimaamadaas iyo shaatigaas in la aqoonsado hebel waa joogaa camal ee kistiisa meelaha loo dhiga camal ayay ka turjumaysaa. Marka sidii uu sameeyey wuu ka tagay wuxuu dhahay yacni tan haddaad cunto saddexda kale way ku dhaafayaan. Marka saddexdoodiba 4taba si aad uga qayb qaadato samee u siri cimaamadii iyo shaatigii uu meesha dhigay wuu ka dhaqaajiyey. tii labaad uu tagay wuxuu tagay ayadoo hadda leeba alaabihii iyo wixii dhan oo la kala dhigdhigayo hadda leeba la isticmaalo oo bilow ay tahay oo aan waxba la qalin. Marka cabaaruu sugay waa sugu waayey wuxuu dhahay tii saddexaad way ku dhaafaysaa. Marka tii labaad waa soo basiray tii koobaad yacni waa soo basiray soo waxbaad soo dhigatay tanna usha iyo ubada dhigo sir uba yacni waxa la dhahaa baash odayaashu inta badan ay weysqaad ku qaataan ninka nin xoogaa da'o ahaa. Marka ubadi iyo ushiyom geed dhigtay yacni si loogu aqoonsado ushan waa ushi hebel ubadan waa ubadi hebel raashinkiisa iyo kistiisa hilibeed meel loo dhigo si loo dhaho uu meel dhigtay wuu ka dhaqaajiyey. wuu baxay mid saddexaad uu tagay. mid saddexaad yacni waa qaawan yahay ugu wada waxba ma wato. ushi waa soo dhigtay, ubada waa soo dhigtay, shaatigu waa soo dhigtay, cimaamadu waa soo dhigtay. tii saddexaad uu tagay marka tii saddexaad uu tagay wuxuu dhigtay kabihii yacni si loo aqoonsado ninkan aana waaye kabihiisa. dadka baadiyaan inta badan si dadka magaalada madan waa iswada yaqaaneen kabti qof nin walba wax kale iska raadkiisa xataa la yaqaanaa. marka ninkan kabihii uu dhigtay tanaafaraadka gaarsiiyuu siri wuxuu ku xisaabtamaa saddexda uu soo dhaafay in raashinkiisa hilibkiisa meel loo dhigi doono ileen midna kaba u taala midna ulba u taala midna shaati baa u yaala. tii afaraad wuxuu ku aaday marka xilli xoogaa galab ah oo adiga carraw ah baadiya wuxuu yaqaan carra galab carraw waxa la dhahaa adiga wixii 9 saac iyo 10 saac wixii ka dambeeya la galab carraw. tii wuxuu tagay oorti la kala raranayo oo wixii dhan isku duba dhaceen oo la cunay oo lagu kala dhamaaday xoolii intii la qashay hilibkii la dhameeyay bariiskii la dhameeyay lagu kala tagay. ninkan waa xanaaq wuxuu dhahay tii hadda soo martay ku laabo. marka tii koobaad uu ka soo bilaabay wuxuu dhahay tii koobaad ee saakay aad shaatiga iyo soo dhigatay iyo cimaamada xilligan way diyaarsan tahay ee ka gaarsiiyey. wuxuu u tagay shaatigiisii
iyo cimaamadiisii oo lagu tirtirtay oo meeshii wax lagu cunay lagu rafaaday in shaatigii cimaamada wax lagu duubaa isdhahay macnaha hilibkaada yarkaa cimaamada lagu duubi doonaa isdhahaye cimaamadiisu waa lagu tirtirtay ciyaalaa ku falaadeen ninkii xanaaq maa tiraa kaba ma wato shaati ma wato cimaamad ma wato hal macwis buu la ordayaa ninkii xanaaq dhiiggaa ku kac tii labaaduu tegey tii labaadu wuxuu ku gaaray calooley iyo majo waxay u yaqaaneen reer baadiyaha ama dadka hilibka qala xaab ayaa la isku dhahaa intaas majinta iyo caloosha iyo madaxa iyo waxyaabaha mindhicraha iyo xaab baa la isku dhahaa xaabkii waxaa intaanan ku haynaa niyo waa baasha waa lagu kala baxay intaan maxaa waaye ku nasiibso intii meel la fariistay ilaa ninku waa baahan yahay saakan ilaa wax muusan cun gurigiisa uga soo taga waaye mid walba yacni aysan kaafikan isu dhahayay ayaa waqtigu ku dhammaaday marka intuu cunayaa maqribka lagu aadimo habeenkii ku galo tii waaba aadi waayaba xilli habeenay ku noqotay tii kow oo kasoo bilaabo u dhiganayay kabaha intuusan gaarin ayaa qorxi ku dhacay waxay noqotay inuu kabihiis iska doontuusan sab iyo afaareedaba uusan gelin marka khasaaradii ugu weynadaa ku dhacday iyo layaabka dunida ninkaas waa nin caana waa la yaqaanaa qisadaasna kolley dad hore u maqlay inay jiraan waan filayaa waxaa jirta marka qiso kale oo ayadana isla arrintan maalmaha ciidda ah ku saabsan dadka sabta jecel inta badan qofba waxbuu sameeyaa qof baa qaaca raadiya meel ka baxayo ku leexda qof baa wuxuu sameeyaa dhalinyarada weydiiyo dhaawarnimo intee maanta ka jirtaa intee ka dhigan tahay inteen ka raadiyaa qofba waxbuu ciyaalka sabgaadayaasha yaqaaniine ragga sabgaadayaasha soo ahaan jiray inta badan dhalinyarada markii leeyahay yararka sabgaad waa la soo noqdaa in badan wax ceeba maa wax iska caadi waayo oo dhalinyarada ay caan ku yihiin marka xariifa wuxuu sameeyey wuxuu arkay ciiddu markii beriyo kala tahay ayuu arkay ri la wado suuqa laga keenay ridii marka xooga way cajabisay wuxuu dhahay ridan aad bay u heli macaan tahay ri cayiran oo maasha Allah qurux badan bay ahayd ridan waa inaad soo ogaataa ridii uu daba kacay ridii nin naaga wadeen oo daba kacay uu socday muddo saacad ku dhawaad ah ayuu ridii daba socday ilaa ay guriga ku tageen waa dhul 7 kiiloomitir 5 kiiloomitir ka badan ayay lugeynayeen asagana intaas uu la socday ilaa suuqa laga soo geeyay ridii waxa laga yaabaa in baawur la saaran mooto la saaran waa la iska lugeysiiyay saas darteed uu daba kacay ninkan guriga ku tagay guriga markuu soo ogaaday guriga la geliyay ayuu ka soo laabtay yacni waa calaamad gurigan birri inuu imaado rabaa ninkan uu ka soo tagay xaafidiisu iska imaaday salaad subax markuu yacni salaad ciid markuu dukado subaxdii ayuu dhahay guriga aan ka gaarsiiyo socod ay xaafadii u tagay xaafadii markuu tagay wax ka jira iyo wax laga qalay malahan rid arigaaba lagu deystay ri waxay ahayd baadiyo ka maqan ama ri ay suuqa ka soo gateen labadaas un bay mid ahayd waa ri yacni aan la qalinay noqotaba oo la deystay ninkii asagoo iscuncunaya ciil iyo rafaad iyo asaga dhanba yacni aan meesha laga saraba aysan dhiig lahayn ayuu soo laabtay ninkaasna khasaaradii ugu weynada baa ku dhacday waa sheeko kale oo la yaab leh nin kale oo asna la lahayo laakiin kaas magaciisa ma rabo inaan sheego laga yaabay dad caanoo yaqaan inay muuqaalkan daawanayaan ma rabo marka ninkaas inaan magaciisa soo sheego laakiin sheekada qisada ku dhacdaan rabaa inaan wax ka taataabto sheeko caan ah meel waxay reer baadiya inta badan waxay sameyn jireen wax la yidhaha kulan ama abay waxyaabo oo yacni laysugu yimaado qofba wax keenayo qof baa soor keenaya qof baa bariis keenaya qof baa wuxuu keenayaa digir qof baa wuxuu keenayaa yacni maaragtahay bahal dhahayo gacato ama gocoso saa u taqaaniin reer baadiyaha inta badan yaqaana waxyaaba noocaasaa laisku keenaa marka ninkan geedkii umaaday geedki marka waxaa ugu soo hormaray dadki qofba mar u imaanaa marka hal mar laysu yimid inta badan geedku waxaa dadka ugu horreeyay waxay keeneen bahal dhahay filfiliir oo dadkii yaqaana waa nooc digirta kamid waaye filfiliir la dhahaa caan waaye aad buu u macaan badan yahay marka filfiliirkii wuu qaboobay filfiliir qaboobay keeneen marka waxay dhaheen filfiliirka aan cunno isugu karin raashinka kale xariifka marka filfiliirku iska badiyey filfiliirki markuu iska badiyo iska jiiftay waxaa la keenay bariis iyo adduun macaana la keenay ninkan wuu dheragsan yahay wuxuu dhahay marka reer baadiya inta badan markay suuliga aadayaan oo kale caag bay qaataan meel yaroo waxay geedaha la isku aadiyaa suuli kama jirta meesha suuligooda geeda la isku aadinahay laba geed la hoosgalaya geedkaas had yani maarata hawshaada ku dhamaysanaya wuxuu dhahay marka ani suuliga aadaa ninkan laba geed looba ka laabtay faro isgeliya nooma tag dik waxaa la maqlay waa lagu kala orday war xaale baro maxaa kugu dhaca war ma xanuunsatay war see wax kaa yihiin
والله أنا حنوصنا واحد ده راشين كمية يلا أيام دي ذي أنا دليل وقتو على شيء اللي مقاضة كراود أي بريس كان أركميد أنك تجاي معهن أنا قاعد في الفلير قوي بنسيني سين مركز عرفتيني أنا بريس كان كتب والله أنا كتجي ليك سيدوس كم تجي بريس كيسين سيدو كوعني marka qisooyinkaas iyo sheekooyinkaas qosolka badan laga diiwaan geliyay maalmahan oo kale maalmaha ciida marka asxaabi ciid wanaagsan waxaan u maleynayaa inaad farxad ku wada ciidinaysaa dhammaantiin idinku caafimaad qaba annagana sidoo kale waan ciidnay maanta marka ciid wanaagsan kula caan maanta bikhair muuqaalkan sii share gareeya hal mid laakiin subscribe waa iga hilmaamtaa mar walba asxaabi wax weyn maahan ani subscribe iyo wax ka weyn ayaad ii quurtiin waan ogahay laakiin waad hilmaamaysiin ceeb kale ma leediin hilmaam leh waa maxana wax kale ma jiraan marka subscribe ta haddaba hilmaam dhac ku sii siina share gareeya muuqaalkan like tana sii raaciya salaamullah